Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamayaa meel kasta aad ka joogtaan dunida daafeeda. Ugu horreyntii fiidiyowga subscribe dheh, kadibna all ka sii taabo si ay kuu soo gaaraan wax kastoo aan soo dhigno, waxyaabo faa'iido lan soo dhignaa. Waan hubaa inaad ka faa'iidi doontid insha Allah. Subscribe dheh, like dheh, kadibna sii share garee. Maanta muxuu ku saabsan yahay fiidiyowgeenu? Wuxuu ku saabsan yahay qudaar muhiim ah oo aad iyo aad jirka bini'aadanka faa'iidooyin ugu leh. Waxay leedahay faa'iidooyin uusan lahayn hilibka iyo chickenka iyo fitamiinaadka aan banaanka ka soo gadano. Waa qudaar raqiis ah oo wax walba qani ku ah oo Ilaahay noo abuuray masha Allah oo aad iyo aad u wanaagsan. Qudaartan aad bay u fiican tahay, waxyaabo badan ayayna jirka u leedahay. Maxay tahay qudaartan? Waa waxa loo yaqaano baatigaanka amase eggplants amase geedka ukunta. Geedkan loo yaqaano bitigaanku wuxuu leeyahay faa'iidooyin aan la soo koobi karin. Subxaanallah, Allah raxmaanka dadka markuu abuuray wuxuu ka dhigay 3 dabaqood. Waxaan ka wadaa steebyo, yacni qayb waxaa jirta dad oo qaniyaal oo qani ah, qayb waxaa jirta mutawasida oo meel dhexaad oo aan faqiirna ahayn qanina aan ahayn, iyo dad masaakiina oo tabar yar ah. Allah raxmaanka wuxuu u abuuray qofkan tabar yaraha ah waxyaabo cunto u gadan karo ayuu wuxuu uga dhigay oo raqiis ah, iyo alle wuxuu u geliyay wax ka kaafoynaya hadduu cuno. Hilib buuna u baahnayn, wuxuusan u baahnayn chicken, fitamiino u banaanka ka soo gato. Waa haddii uusan awoodin, hadduu gadan karo kulligood way isugu fiican yihiin. Laakiin qudaartan waxay ka kaafin kartaa hilibka. Faa'iidooyinka ku jiray way ku jiraan, borotiinkii wax walbuu leeyahay, bir buu leeyahay, macdan buu leeyahay, fitamiino leeyahay. Waa raqiis haddana oo 2,000 shilin aa kusoo gadan kartaa. Yacni 4 kiilo 3 kiilo ama 4 kiilo oo baatigaana waxaa laga yaabaa $1 inaad kusoo gadatid. 4 waqti oo sanadka wuu joogaa, markasta waad heli kartaa, yacni markasta waa gadan kartaa. Marka taas waa nicmo ka faa'iideysta. Maxay yihiin faa'iidooyinka uu bitigaanku noo leeyahay? Lambar 1 waa muddaad aksada. Lambar 2 wuxuu ilaaliyaa waxaa loo yaqaano xamda nawawiya. Wuxuu ka ilaaliyaa xamda nawawiga ayuu noo ilaaliyaa. Difaaca DNA-ga ayuu ilaaliyaa. Subxaanallah, faa'iido aan la soo koobi karin ayuu wuxuu u leeyahay caafimaadka maskaxda oo fahmada xataa wuu siyaadiyaa. Maskaxda mukhda bini'aadanku ka socdo weeye. Marka faa'iido ayuu u leeyahay haddii la cuno geedkan. Haddaad cuntid geedkan wuxuu kaa caawinayaa jirkaaga inuu qaato cuntada nafaqada iyo nuxurka leh. Sidaa daraadeed waxyaabaha soo hara oo qofka laga yaabo inay dhibaato u geystaan uu soo saaro ayuu kuu sahlayaa. Muxuu kaloo kaa caawinayaa geedkan si aan la soo koobi karin oo fudud oo sahlan ayuu markaad cuntid jismigaaga jirkaaga ayaa wuxuu usoo dhuuqayaa macdanta iyo birta ku jirta geedkan. Bir aan la soo koobi karin iyo macdan baa ku jirta. Muxuu kaloo masha Allah geedkan sameeyaa? Wuxuu nadaaminayaa dhiigga, dhiig karka ayuu nidaam u sameeyaa. Waxaa la ogaaday daraasaad markii lagu sameeyay iyo baaritaanka, haddii loo cuno geedkan bitigaanka si joogto ah, haddaad u cuntid inuu dhiigaaga dhiig karka haddaad qabtid ama dhiigga caadiga bini'aadankaba inuu sax ahaanayo oo uu ka ilaalinayo dhiigga inuu kor u kaco. Qofka dhiiggiisa inuu kaco oo dhiigaaga u kaco ayuu ka ilaalinaya. Dhiigaaga hadduu kaco ma fiicna, sida daraadeed wuxuu joogayaa dhiigaaga meesha loogu talagalay. Waa haddaad cuntid oo si sax ah u cuntid. Okay, geedkan muxuu kaloo kaa caawinayaa sida dadka iscaateeyo kale. Waxaad ahaanaysaa qof miisaankiisu uu yaraado, miisaankaada lagugu talagalay ayuu ahaanayaa. Sida daraadeed wuu u fiican yahay dadka iscaateeya, sababtoo ah waxyaabo fiican ayaa ku jira jirka. Hilibka uma saarayo baruurta aan loo baahnayn, wuu ka ilaalinaya waxyaabaha xaraqa sameeya, gubitaanka ayuu ku jira. Fitamiinkana jirku dhaqso kala soo baxaya. Maxaaba kaa maqan? Muxuu kaa caawinayaa geedkan oo ay tahay faa'iidada kale oo uu noo leeyahay? Wuxuuna kaa caawinayaa oo faa'iido aan la soo koobi karin u leeyahay geedkan. Masha Allah, waxaa ku jirta maado loo yaqaano naasoniin. Taas waxay ka caawisaa unugyada iyo lakabyada jirkeena waxay faa'iido u tahay inuu jirku qaato canaasirka qadooyinka, canaasirka nafaqada oo faa'iidooyinka u leh jirka bini'aadanka ayay aad iyo aad ugu fiican yahay.
muxuu ilaaliyaa geedkan? Wuxuu ilaaliyaa jirka bini'aadanka, ayuu ka ilaaliyaa sunta iyo xanuunada wuxuu weliba ka ilaaliyaa jirkeena, oo macnaha wuxuuna siinayaa wax oo xoojinaya oo jirkeena. Ilaah baa wax walba ilaaliya, ka ilaalinaya xanuunyaal badan sida xanuunada ku dhaca wadnaha ama xanuunada loo yaqaano sarataanka. Ilaahay ha naga qabto annaga iyo jamiical muslimiin meel kastoo ay joogaanba. Wuxuu kaloo geedkan kaa caawinaya u fiican yahay iltihaabaadka mafaasilka gala, xanuunada gala kala-goysyada. aad iyo aad waa haddii aad u cuntid si sax ah, oo macnaha aad samaysatid sida dariiqada saxda oo loo kariyo, ama aad cuntidba. Dadka waxaa laga yaabaa inaysan badankoodu cuninin. Marka geedkan aad iyo aad ayuu u fiican yahay. Xataa culimmadu waxay soo ogaadeen markay baaritaan ku sameeyeen inuu geedkan si sahal ah haddaad cuntid oo badsatid oo aad cuntid 3 waqti ama 2 waqti, aad iyo aad buu geedkan ficlan dad badan ku nool oo fuqara. Carabtoo kaleeto waxay ka samaystaan wax loo yaqaano mukhallal oo dhanaan ah. Waxay ka samaystaan, way shiilaan subaxii, way ku quraacdaan, foornaday gashadaan, salaatay ka samaystaan. Yacni waa geed aad iyo aad muhiim u ah oo jirkeena u fiican. Wuxuu ku siinayaa haddaad geedkan cuntid. Awal xaaga waxaan dhahnay faa'iidooyinkii aan kasoo hadalnay waxaa ku jirtay inuu jirku dhaqso usoo dhuuqayo birta ku jirta geedkan. Muxuu kaloo kaa caawinayaa haddaad cuntid geedkan inuu sameeyo oo uu gaaro oksijiinku dhiigaaga inuu si dhaqso u gaaro. Muxuu kaloo kaa caawinayaa geedkan soo sheegnayba waxaa ku jira faa'iidooyin tiro badan oo iyo fitamiino iyo waxaan la soo koobi karin. Sidaa darteed wuxuu xoojinayaa waxa loo yaqaano nidaamka difaaca jirkeena, ayuu xusinayaa awood oo aad iyo aad ugu fiican yahay. Wuxuu kaa caawinayaa geedkan inuu hoos u dhaco miisaanka dadka qofkii iscaateynaya, sababtoo ah cunida baatigaanka waa geed qani ah. Waxaa ku jira canaasir ghazaa'iya mufiida liljismi. Waxaa ku jira waxyaabo nafaqo leh oo jirkeena caawinaya. Waxaa ku jira waxa loo yaqaano mudadad aksida. Waxaa ku jira fitamiinaad iyo macaadan iyo waxaan la soo koobi karin. Sidaa darteed haddaad cuntid geedkan wuxuu hoos u dhigayaa oo yareynaya waxa loo yaqaan sucraat xaraariya. Qof kasta uu garanaya ayuu hoos u dhigaya. Geedkan waa geed aad iyo aad u wanaagsan. Muxuu kaloo sameeyaa geedkan? Wuxuu kaa ilaalinayaa oo muhiim si fiican kaagaga ilaalinaya cunida geedka loo yaqaano baatigaanka. Si joogto ah haddii aad u cuntid, wuxuu ilaalinayaa lakabyada, difaaca unugyada qofka bini'aadanka ayuu ilaalinayaa. Sidaa daraadeed markuu kuu ilaaliyo, wuxuu kaas ilaalinayaa si oo dhammaystiran ayuu u ilaalinayaa unugyadaada. Wuxuu ka ilaalinayaa lakabyada, difaaca unugyada ayuu wuxuu ka ilaalinayaa inay dhintaan oo uu ku dhaco waxyaabo isbedel ah. Sidaa daraadeed waxaan kugula talinayaa geedkan inaad cuntid, ilmahaagana siisid. aad iyo aad u wanaagsan yahay. Sidaad u samaysan lahaydna ama waad shiilaysaa intaad sidii taranshaada u jirtid, ama waxaad samaynaysaa foornada gashanaysaa, ama cuntada ku darsanaysaa, suugada ku darsanaysaa, ama mukhallal ka samaysanaysaa. Si kastaba haatee waa geed faa'iido leh. Ugu dambeyntii fiidiyowga subscribe dheh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.